السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستoo aad adduunka joogtaan dhammaan waxaa ku salaamantiin salaanta islaamka. Muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa hadalkii ninkii Cabdulaahi Darawal ahaa. Sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa nin galaal la yiraahdo oo xisbiga wadani kamid ah oo ilaa hadda la kama soo jawaabin madaxweynuhu sida ciidanka qaranka Soomaaliland u jabay waxaana uu maaragtay cid u saaray xubin guddiga doorashooyinka kamid ah oo xubintayadii ahayd oo waxa weeye ay soo dacweeyeen arrimahaas sidee isku qabanaysaa inta waxaynu raacinaa iyadana oo kale waxa la ogeeyeen in dhalinyar la lahaa ciidanka qaranka way dowrsanayaan bacaysitaan oo inankii yaraa isla isagii ka soo jawaabay uu jawaabtina soo siiyay dadkii waxaas faafinayay waayo waxaan ugu horeynaynaa Cabdulaahi Darawal balaan muuqaalkiisa isla daawona Cabdulaahi Darawal hal iyo laba ka oran doonaa madaxweynaha waxaan u sheegayaa adoo gacantaada ay ku dintay ciidankan ogaa ee qaranku ku baaba'ay adigoo gobollo iyo degmooyin waddanka ka mida ay gacantaada ka baxeen adigoo dhaqaalihii dalku maanta halku taagan yahay og haddaad ogolaato taa maanta oo aad dastuur kaga jabisay iyo shuruucdii soddonka sano la soo dhisayay waxaad ogaataa waxaad ka heshay inaad cid wax ogaatiin waxa uu sheegayaa waa taladii ay gacan libax laga soo tagay ee uu madaxweynuhu aqbalay talada uu sheegayaa ee guddiga habar jecel ay keentay ku sheegayaa takuu daba taala hadda taa ogolaatay waxa weeye qodan waa reer kiriye in konton oday oo Soomaaliland inta lagu qaybiyo lagu raacay meesha lagu waayo hadalkiisa nuxurka intaasan ka soo qaadanaa Cabdulaahi Darawal horta dad badan waxay isleeyihiin muxuu ka hadlayaa maxaa dadka ka soocay waxyaalahaas u isleeyihiin horta Cabdulaahi Darawal hadalkiisa waa gar beenta ma fiicna Cabdulaahi Darawal waxa lagu yiri xisbi baad leedahay madaxweynaha u tartamaysa kiimay waxa weeye tii ururada gelaysa kadib tii madaxweynaha gelaysa ninku qaabkaas ku shaqo galay waxa weeye waa tii arrinkii kala dhacay waa tii guddiga habar jecelo soo saartay halkii wadanka iyo qaabka ay ku kala badbaadi leen ee ummadana hore ugu sii socon lahayd ee ummad jirta ku noqon lahayd iyadoo meeshu god ku sii dhacaysa oo askar dhimatay oo buur la saaran yahay oo ciidanku maalinta ka dambayso oo ku soo qulqulaya buurta marka taladii la keenay waxay soo baxday inay mujaxaabiso ururada haddaba ururada xaq looguma laha xoog laakiin xaq waxa loogu leeyahay inay tanaasulaan iyo barya xaq loogu leeyahay waayahay qaarna waa qaaran ayagoon la baryin wadankood wadan jacayl ama dalku ay jecel yihiin iyo ummadan jiritaankeeda oo ay maaragtay rajo ka leeyihiin oo hankooda uu kala weyn yahay ummadda masaakiinta oo si nabad isaga noolaata ummadaas waxbarashadoodu sii socoto ummadaas dawladnimadeedu sii tasqaado dadka qaarna waa dad baryo u baahan iyo si gaar ah loola xaalo ninkan iyo nin la yiraahdo oo nin isagana ninkii reer Boorama hilaac watay waa labada nin doonay si gaar ah loola xaal rabaa runta la sheegay marka waxaan ku hadlayaa waa xaq waxa uu ku leeyahay dastuurku wuxuu ballan qaaday uu ku leeyahay ururba furtay inaan doorashada madaxweynaha galo maxaa la igu diidan yahay ma odayaalba waxay sharciga la xoog weynaaday buu ku leeyahay moogtahay marka arrinkiisa horta waa gar laakiin Cabdulaahi Darawal hal mid baa u fiican horta waa nin mujaahida taariikh qurux badan ku leh sida Soomaaliland dhexdeeda ilaa waqtigii nimankii ugu tunka waaweynaa nimankii asran buu kamid ahaa Cabdulaahi Darawal hadii aan aqoon ninka waxa u fiican waa uu garanaya halka wadanku ka yimi inuu isaguna umada tanaasulo oo u tanaasulo ashxaasta meesha ka tanaasuleysa ururada waxa u tun weynaa ninka la yiraahdo xaashi waxa jirtay in gudoomiyaha golaha wakiilada isagoo leh uu tanaasulay sababtoo ah markii kulmiyo uu isaga tagay ninka Faratoon la yiraahdaa markii uu ka qaaday gudoomiyanimadii golaha wakiilada ninkii la oran jiray Cabdirasaaq Khaliif waxaana uu wax kala dhistay oo wax la qaban qaabinayay ururkii la oran jiray ka oo maartay ina xaashi markii ay guddidu wax soo saartay isagoo golaha wakiilada gudoomiyahada leh waxa uu ahaa rag ugu hortanaasulay asaga urbarwaaqo iyo ururo kale maartay nimankii kale marka isagana waxaan jeclaa waxa fiican in halka walaaladii mareen halka ururada ay mareen inuu gobonimada qaato waayahay waxaan u tagi doonaa
xisbiga wadani maanta waxaa hadlay nin galaal la yidhaahdo waxyaalo fara badan buu ka hadlay bal waxaan soo qaadanaa hadalkiisa oo aan hal iyo laba ka odhanaa asagane bal waa kan ila eega in baaritaanka wixii gobolka sool ka dhacay uu madaxweynaha birkiga adag yahay laakiin xubinta komishankee wadani uu degdeg ugu saaray guddi baarisa ninkaasi qodobka koowaad uu ka hadlay waxa weeye si madaxweynuhu markaba guddi ugu saari karaa isagoon arrinkii sool ka dhacay aan guddi u saarin kaasi waa qodob haye waxaan leeyahay madaxweyne haddii xubinta iyada komishanka ay kaar kugu hayso oo kugu taagan tahay annagana xuduudihii iyo soodimihii dalka ee qaranka iyo midnimadii bulshada ayaa nagu taagan xaaladda ciidanka jamhuuriyadda somalilan iyo hoggaankiisa ayaa kaar nagu hayoo nagu taagan dhacdadii maraaga iyo goojacadi iyo raggii bannaanka lagaga tegey ayaa kaar nagu haya oo nagu taagan waxaan leeyahay hebel iyo maraagaba baryaha waanu hibanaayey hebel iyo maraagaba baryaha waanu hibanaayey dadku iyaga gabayga si khalada u turjumin hebelku ma aha faysal cabdi buutaan oo keliya hebelladu way badan yihiin faysaladuna way badan yihiin waa raggii goobaha lagu dilay waa raggii la dhaawacay waa raggii la qabtay waa raggii bannaanka iyo cidlada lagaga tegey weeyaan hebelladaasi marka waxaan leeyahay hebel iyo maraagaba baryaha waanu hiibanaayey halbowlaha lugtiya waana go'an hanadka feedhaayee huwan maqashay ina biixiyow hawta nagu taalle huwan maqashay ina biixiyow hawrta nagu taalle hareertayda guutada fadhiday ama si haaneedka habeenkoo bartegayaa ka raray ee dib uga heenseeyey isku soo waduub ninka galaal la yidhaa waxa uu aaminsan yahay in ciidanka qaranka la siyaasadeeyey in guutooyin laga raray in qaar cadowga loo loogay saasuu aaminsan yahay hadalkiisa nuxurkiisu waa intaa sida markaa gabaygiisa eegto markaa hadalkiisa eegto oo horta meeshaan rag baa ku dagaalamay guda iyo maaragtay dibad baa laga dagaalamay puntland baa kusoo gurmatay jubbaland intaasoo maaragtay maamul goboleedda la isaga yimi xataa wadamo jaarkaabaa ciidamo laga keenay meel kastoo waa la isaga yimi saasaana ciidanka qaranka lagu soo jebiyey markaa wax meesha laga sii hadal guraa ma jirto meesha wax kusii jiro oo sii gocoshaa ma jiro taana intaasaan ka imanayaa xisbiga wadanayna waxaa sii wadwadaan wax fiican ma aha xuduudda qaranka waa xuduudda qaranka cid ka tanaasuleysaa ma jirto laakiin dee qaabka lagu gaari lahaa unbaa ubucan in laga fikir dheeraada iyo maaragtay maskax la raaciyo laakiin han laga tanaasulaya ma aha taasina waxa weeye waa soo bariiqad wax weynna ma aha waa kiina jirde oo xisbigan wadani qudhiisu ka mid ah waa kii yidhi ciidan somaliland may maaragtay baabi'ine xariiq yar baa soo gaadhay gobolkaas sool somaliland maaha gobolkaas sool uun gobolkii sool ciidanku waana ku dagaalameen qaybna waa joogaan waana insha allah xad kale way gaari doonaan inta halkaasaan ka imanayaa wax markaas waxaan leeyahay meesha laga sii maaragtay lagu sii celceliya la idhaahdo waxba asaasi waxba asaasa meeshaas ma fiicna taa intaasaan ka imanayaa waxa jirta in la ahaa ciidanka qaranka maaragtay suuqyada ka dawarsanayaan bal inaan ki yaraa ee maaragtay meesha joogay bal qaabku la hadlay igaaga halkii saacad u dambeeyey sawiraan leeyahay aniga ardaa imiiriyaha qabsaday ee lahaayeen ciidanka qaranka oo dawarsanaya bal horta mid baa idiin sheegaya horta ciidanka qaranka sharaf u leeyahay waa ciidan karaamo leh qof walba og ilaahay bog kolka shacabka reer somaliland waxaan u sheegayaa waxaana soo dhigay waxba kama jiraan dee shacabkaygii oon maxay hayday aan wareysanay daawatay ma rajaynaya bayla seegaan kalma maxay alaabtaan gacanta ku sidana waa alaab aan ugu talagalay inaan shacab maxay dadka dayartaa siiyo weeye oon aado dhaqsiyahaan ama luqmahaan u soo adeegtay weeye oon maxay hayday
waayahay inaan kaa yari waxa uu sheegay qaabkay waxu dhaceen iyo qaabkay waxu jireen markii horena waa qaabka idiin soo sheegay dadka markaa waxaas wareejinaya waa dad doonaya fadeexada ciidanka qaranka kuwan kale Hargeysa waxa ma arkay qaar Hargeysa joogo qudhoodu waxa wax ka soo qaadaya waxa weey waa maartay hal oran karaa waxa weey waa cadow kalkaal uma lagu sifayn karaa dadka maanta ciidanka qaranka iyana ka yareedadiisu aad ka yartahay ciidanka qaranka ah doonayeen inay fadeexad shaqo weeyaan ciidanka inankii arana jawaabtii iyo qaabkii wuxuu jireen isbooka afkiisa inoo sheegay aad iyo aad baa umahadsantiin muuqaalkayga inta iska joojinaya insha Allah waxaan ka codsanayaa haddaad Facebook iga daawanayso soo follow gare muuqaalkan la igare insha Allah siina share gare oo saaxiibkaasi gaarsii